howlaha guud ee Soomaaliland Cabdirashiid Ducaale Qambi iyo wafdigii uu hogaaminayay maalmihii u dambeeyay ku sugnaa gobolka Buuhoodle ayaa maanta socdaal shaqo ku tagay magaalada Woodward iyo degsimooyinka hoos yimaada degmadaasi soo dhaweyn diiran oo ay wasiirka howlaha guud iyo xubnaha wafdigiisa ay kala kulmeen degmada Woodward kadib waxa ay bulshada reer Woodward kala hadleen goob fagaara ah oo ku taala guriga martida ee degmada Woodward waxaana halkaasi hadal ka jeediyay mas'uuliyiinta degmada Woodward iyo siyaasiyiin ka soo jeeda degmadaasi oo kamid ah Kaysa Cabdi Yuusuf waxaana wasiirka howlaha guud ee Soomaaliland uga warameen mas'uuliyiintaasi baahiyaha ka jira degmada Woodward iyo sida loogu baahan yahay in xukuumadda Soomaaliland wax ka qabato وشي كاغا هنا بالخطة بركة اللي بدي أنا دبضة هاي نوعنا أدنى حسل شو وأدنى لقى هذا تعقون حسل شو تجام ككلية معامل كسوما كذا بلارن كسرتا جمهورية الصومالية وهجامين يوم مدن وزير كهولا جودية جوريينتا Cabdirashiid Ducaale Qambi waxaanu anagoo maanta joognaa soo marnay meel kale oo dhowr sida Qorlugud iyo Buuhoodle halkan oo degmada Woodward ah ayaynu ku soo dhaweynaynaa deegaankan hadda maamul xukuumadda cusub Soomaaliland uu hogaaminayo madaxweyne Muuse Biixi hadda maamul ay u samaysay ma taalo dhanka boolisku waa hay'adda quuda ee ugu liidata boolisku waa hay'adda quuda ee ugu liidata Woodward boolisku waa hay'adda quuda ee ugu liidata Woodward maxaa yeelay ma tayaysta waxa waxay wax ku xidhaan silsilad ma haystaan oo katiinad ma haystaan oo buugiyo ma haystaan wax lagu qori jiray oo gabigoodu waa 17 wasiirka wasaaradda howlaha guud ee Soomaaliland Cabdirashiid Ducaale Qambi iyo wasiiru dawlihii hore ee xanaanada xoolaha Cabdirashiid Riyaar Raac ayaa dhankooda bulshada reer Woodward iyo maamulkooda ba ku dardaray adkeynta nabadgelyada deegaanka isagoo geesta kale wasiirka howlaha guud halkaasi ka ballan qaaday inuu baahiyaha ka jira degmada Woodward xukuumadda Soomaaliland u gudbi doono si degdeg ahna wax looga qaban doono ama Qorlugud ha ahaato ama Buuhoodle ha ahaato ama Woodward ha ahaato dadku meel ay joogaanba waa isku mid oo waa isku dan marka ugu horeysa waxa ka hadlayaa nabadgelyada oo laba kelmadood ka oranayaa anigoo aan cidna ku durayn cidna ku caayayn cidna ku aflagaadaynayn reer Woodward waxaan la socodsiinayaa ka codsanayaa inay nabadgelyadooda ilaashadaan oo cid aan u rari doonin u furi doonin ay waxba u rarin anigu taasaan oranayaa nabadgelyada ka oranayaa marka laga hadlayo laga yimaado Qorlugud ee la yimaado Carro Dhulbaante oo la yimaado gobolka Buuhoodle meesha kaliya ee dantoodii inay ka muuqato inay raacanaysan ay joogaan waa Woodward ujeedada ugu weyn runtii socodkan wuxuu ahaa inuu nabadda la iska waayigeliyo oo aynu nabad cid walba ugu baaqno derisku nabad isugu baaqo derisyada shishe nabad la isugu baaqo wasiirka wasaaradda howlaha guud ee Soomaaliland waxa uu sidoo kale kormeeray xarumaha caafimaad ee degmada Woodward isagoo geesta kalena wafdigan uu hogaaminayay wasiirka howlaha guud ay kormeer ku tageen deegaanka Carraweyn halkaasi oo ay kulamo kula yeesheen saraakiisha ciidanka qaranka ee aagga Carraweyn Cabdiqaadir Xuseen Nuur Dacar iyo Samatar Maxamed Maxamuud warbaahinta qaranka magaalada Woodward.